shakhsiga kaliya ee Soomaalida maanta nool ugu awoodda badan dhanka wada hadalka iyo sheekooyinka siyaasiga ah ruuxan lahayn dabci laga dido oo dugsi u ah kabiirada iyo kalkaaliyaashiisa dawladdu soo fargelisa ama shirkadaha soo fargeliya inaan raahno war annaga ma soo fargelin kartaan ma la fargeliyo dawladaha kale oo caalam ku nool wax kale ma aha waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanayaan waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallahi ma yaqaanaan Soomaali ma yaqaanaan شقالة دولة هل بالمشاهر لان ما نقول عسكري عيدا هل بالمشاهر لان ما نقول إذن كاوعا إذن كمسؤولة وكشقي حسلوني داس هذا إذن كاهان لهين حسلوني دلك كمجرين حسن قرقورتي وحكد بوين وحال السعودي الشريف كرسي مبقي نكا ضب حسين هنا عبد الرشيد محوها مقعيس عمر عبد الرشيد كرسي مبقي بوبحين قليها وي كوض وبحيانا محي كان وبحين ايام هلا ويدي والله وبالله وطلاه لقبل ابا مانتا دارود ميهي هرتي ميهي ماتشيرتين iyo hooyood midna miihi qabla laxmeehi laga bilaabo maanta waxaan ay Ethiopian anu wardheer baan ku dhashay Soomaali waa ka baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daraadiisan Soomaali uga baxay hooyadin ana warsa Soomaali oo dhanay Soomaali baan ahayn waan nida aqoonin mاتشيرتين baan ahayn harti baan ahayn qabla lax baan ahayn war aniga haddaan xitaa islaam kaligii noqotin waan kaga baxaya maanta damiirkaygu meeshuu marayan baan gabtay gudilay imaadan goysana gobolkay baa kugu jira maanta waxa isgarab istaagay waa ragil maadeera maanta waxa faylaha gooyay maanta waxa gondaha qabtay maanta waxa boqologeeyay waa Axmed Madoobe madaxweyne isaga ka horeeyo Soomaaliyeedna ma jirin madaxweyne isaga ka dambeeyay oo Soomaaliyeedna ma jiro dalkuna inuu burburahayo waa shakila aan hadii farmaajo ka tago maalinkii farmaajo la waa Soomaaliyeedna waa ku diisay wakaasa doorasha shalay dhacday Saadoogeedeen ani doorashadii ugu horeysay waxa dibin bilow ilaa dhamaad aan usoo fidiyay waan xisaabinayay oo aan tirinayay xataa bi ahayd doorashooyinka hore yaani natiijooyinka dhageysan jiray bas marka wuxuu ahaa yaani qofkii ugu horeeyay madaxweyne ah oo Soomaaliya ka taliya oo aan si qalbiyana aan taageero waan jeclaaday shakhsiyadiisa iyo siyaasadiisa labadaba daacadnimadiisa yaani iyo wax walban walba farmaajo markii laga eego aniga waan jeclaa oo wuxuu yahaa ilaahay inta rabta Soomaali inay hoos noqoto ilaahu ayukana musmaarka burisku ugu aadinin aamiin hooyo farmaajo hilibkii jirkaygo kan habsiye caano haduu cadow ku haaraamay oo ku heshiiyay hooyo anaga hareertiyo garbahaaga joogne hooyo hamudan ciil damir laawa kidadkiisa dilaa qaran dumis shisheeya kalqaali dugag baan tahay allan ka maganka xaqa ka dilaa علي أنت سكول مادين صار وستين فالقلبية ذا نذا يمسكح ذا إن يجعلك أقبله كالي نقصارا مدن مدحوينه
waxaa taa madaxweynihii ugu horreeya kursiga laga dejiyo oo san loogu wada ooyo oo ku xiisa farmaajo waraa farmaajo dhegeysta farmaajo horta idiin sharaxay dhegeysta farmaajo shanta Soomaaliya wadato waraa baydhabo looga dabaaldegayaa wiilka Kismaayo jooga asoo hadli karin uu farmaajo dabaaldegaya brother oo qori lagu hayo uu leeyahay farmaajo aan noolaado farmaajo جهان ولا هذا برادر قف عيل قبو عيل أكو سعد عاو كي توت قمنا إما ذا ميديا برادر سيدنا كاقو عدوينا كاقو حني وينا وراد بور كذا مسبح معك عام سنتاي نحن بك عام سناي صوته متقان سومالي دو كلا صار نيو في المجمع معك عام سنتاي نفي عم بك عام سناي صوته متقانا ومدحوينا ومد الصوماليين مدي نيو ندني معك عام سنتاي ساعة وعرور سبب ساعة ما تدي مساكين كدول دقالة مساحب waxaan imika idin galayaa ninka dayacan ee qaranka dayacay ee dantiisa raacday ee xasan garguurta la leeyahay qabyaaladiisa sidoo qarnida Soomaaliya ugu ciyaaraya ee uu taariikhdu u baabi'inayo ee uu dawladnimadu waxaan la hadlayaa madaxweynaha dalka waxaan la hadlayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa aaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xabiibul malaayiin waxa tahay geesiga Soomaaliya waxa tahay libaaxa dalka Soomaaliyeed waan kugu faanaa qalbiyadeennana waad ku weyn tahay run ahaantii waxaad noqotay qofka maanta bulshada dhan u ilmeeyeen qalbiyadeena ayaad ku jirtaa libaaxa dalka dibna ugu soo laabo aabo waxaad imaadee adigoo lagu farxayo waxaadna baxday wili adigoo lagu jecel yahay mudana Farmaajo waxaan rajeynayaa mar kale dib inaad noogu soo laaban doonto sida aan u jecelnahay inaad noo soo laabato mise ma ogtaa caalamka dhan inay ku ilmeeyeen waan ku xusi doonaa aabo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan ku jecelnahay maxaa ku xasuusataa mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ani maharees ahaan waxa ku xasuustaa wiilkii isbaara dhigto wiilkayga ma ahan allo noo baarlamaanka 11 guga maanta da'aya gugiisa hagaarinooy guryihiinu bas beele kantaalo gargaraanaya goobihiina ku hoobte gawaaridaada wadataan garneel yimiina la boodi dalkii waad gadateen ilaahaydin gubiyo ilaahaydin gumi ilaahay guryo baas iyo god cidlaa idin taag gaasir moogacal waaye gablamo ubad waaye gud curleydin ku dul dalkii waad gadateen ilaahaydin gubiyo ilaahaydin gumi galad waaye adduunka cudur waan la aqoon iyo cufuf baas idin laah maalintaad dhimataan oo dhulka hoos maraysaan silca oo saxariirma kari waaye ashahaada ciir mooleydin cadaab ilaahay idin gubiyo ilaahay idin gumiya magaciinu yaraa muuqiinu la waa magac waaye adduunka dalkii waad gadateen ilaahay idin gubiyo ilaahay idin gumiye oo ilaahay idin gargaaro xaqiiqdii mid aan ilaabi karin inta la nool yahay waxa waaye madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo muxuu qabtay muxuuna sameeyay askartii shalay ka ordi jirnay anaga ka carari jirnay ayaa maanta jeclaanay ayaka maanta ayakana wada sii jeclaadeen garab ayana siiyaan anagana sidoo kale yaa askar isku sabir jiray istaag jiray qof walba ku ordi jiray inteeda kale askarta lacaga caadi ah inuu siiyo noloshiisa dhan ayuu kaafiyay baahi walba ayuu tirtiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadanka nabad ka dhigay meel kastuu qurxiyay ana waa jeclahay Farmaajo fahamtay madaxweynaheena waa qalbiyadeena waxaday qof kasta maanta agoon camal noqday Muqdisho ku nool wadanku wuxuu qabtay horena loo maqlin jacaylka madaxweynenimo ayuu barinaa madaxweyne jeclaano wadanka inaa jeclaan askarta jeclaano ina anaga dhan is jeclaano Muqdisho ina jeclaado qof walba soo ordo ayuu baray soo as amal inta la helaa weligeed wariyaa maxaa inta u fadhisaa doorashada lagu dhawaaqay madaxweynaha la doortay be igama dhaadhicin karto oo hadda doorashada ma lagu dhawaaqay madaxweyne ma la doortay haa waa lagu dhawaaqay yaa la doortay ii sheeg waxa la doortay mutaqaana mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yes DJ nasabadaada hasti u tur abehen male elba male xuman male oo elba male sidii abba xasan gule doo kale waa geesi kale gashaan kale iyo garab kale sidoo kale waa sidaa kale inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun Soomaali ilaahu naxariisto Soomaali waa dhimata
أنا سياسة إنك هذا مجعلي لكن وحان تصوعد كي أركت أبوه لبلبا كايمانا فرماجو هيز ذا بيست كاس لو على الإسويديناي مدحوين أسق عمل مجرب أنا جم أركن ما نظرت بعين ميبي كهور وجرين 4 كومبالي 5 كلات لكن أنا جم أركن فرماجو جيس إلى جيس على جعليه حبيب الشعب حبيب الملايين دق يجون وجعليه يريس يوين وجعليه حيوان حتى وجعليه لو جيل إرتا فرماجو جعليه معك ربتين مية مال رو قبيالة وادلي محل شعبك سمعضات إشرفتات إكرامات وصنوخي أجانبتي وأنا برتين وحبرتين بلد صومال راح يناجروا صومال وحاس مرتو وحربتها رفاد بو خيالي كيالا صنوخي أو أجانب سجودي أو بدأ قداي سبحانك يا عظيم هذا إيكابادي أبقى أكو طلع فرسنة وأنا بنتاي والله بالله تطلع ساكن لقب لا بس صومالي هرتوا بس كيتي ألو تتكاس كلام قليا هو يدود قبل الله حوصل دارود هو يدي حوص مريحان بانا just now مريحان بانا لقب الله وقاعدين ودنا هو يدي بنوصي كي قبل الله حشيكتا قبل الله هو يدي حوص متشرتين هو يدود حوصل للذي إذن دشي هو يدي بوصل متشرتين يتلياني قاتين اللو ينكاتين تي هورنا يدين كادمية تنا يدين كادمية just now wax قبل الله قاعده maantina aniga la igu xisaabtay min ogaadeen hadaan axmed oo Soomaa khaniis dalab waxa awal bal la waso oo khaniis ah buu ahaa khaniis buu ahaa awal bal khaniisadu dhashay Soomaa ma jeerteen hooyadooda ha waso ilaa la isku cidahan just now والله وإباء خلد ذكراه وهب الأجيال عزائم وأجاهد مثل القاسم